diin la idilo oo aan maydo nin baa idili doona. allaha u naxariistay hooyo Aamina Faarax Colaad waxay ahayd hooyada 12 caruur ah oo 8 agoon tahay isla markaana gacanta ku haysay qoys miyi oo xilligan abaartu haysay miyiga tuulada Bardadawanle oo hoos taga degmada Godaale ee gobolka Sool. Dooraad subax ayay u jarmaaday tuulada Bardadawanle xilli ay ku hawlanayd raadinta qowtulyoomka qoyska balse muddo 24 saac oo la ayaa meydkeeda oo ku siiyo jirdil baan loo geystay laga helay dooxada lagu magacaabo Dharinle ee miyiga Bardadawanle waxaana jirkeeda lagu arkay dhaawacyo argagax leh iyadoo goobta uu dilku ka dhacay ahayd dhul cidla isla markaana aynay ka dhaweyn degsiimo iyo dadtoona sida ay daljir u xaqiijisay Siraad Yuusuf oo aad dumaashada marxuumad Aamina Faarax. Dilka Aamina Faarax ee waa dilaan Ilaahayna soo marin midaan Ilaahayna soo marin oo fool xun buu u dhacay. Dilkaasi wuxuu dhacay dilkaasi 10kii gabadha gurigeedii waxay ka soo tagtay baa la 10kii subaxnimo maalintii waxay ahayd waa daraad shalay daraad lagu qiirooday waa mid lagu qalbi taqtaqay waa midaan Ilaahayna soo marin sida u galay gabadha islaamka ah meesha uu dilku ka dhacay waxa la yiraahdaa baa la igu yiri waxa la yiraahdaa waa meel dhalin ah oo la yiraahdo dhalin baa la yiraahdaa dhalin taariikh magacaan ku daro ma garanayo eedoy dhalin deegaanka waxay ku taalaa meel Bardadawanle ka sokaysa oo tog la yiraahdo baa la Kalbirdaalay way ka soo sareysaa Kalbirdaalay tog la yiraahdo way ka soo sareysaa dacdadan xanuunka badan deegaanka waxa looga dareemayaa eedo aruurta agoonta ah waa 8 iyo 3 kale oo aabahood nool yahay maamadu intaas ay caruur dhashay. marxuumad Aamino ayaa sheegtay intayna dhiman ka hor inuu jiro nin marar badan ugu hanjabay inuu nafta dhaafin doono iyadoo warar kale daljir helayso ay sheegayaan in tixraacyo lagu arkay goobta meydka laga helay muujinayaan inuu dilka geystay qof raga sida mar kale ay sheegtay Siraad oo ah dumaashada marxuumada. maamadaasi waxay tiri nin baa ii dhaarta way maamadaasi tiri ninka aniga magaciisa iyo inayadiisa midna idin ma sheegi karo oo layma oran waa ina hebel layma oran gabadhaasi waxay tiri hadii gabdhay waxay dad badan bay waxay ku tiri baa la yiraahdaa la idilo oo aan maydo nin baa idili doona oo igu taamaya ninkaasi hadduu idilo magtayda ninkaas lagu leeyahay bay maamadaasi tiri baa la yiraahdaa anigu magacna ima sheegin ina ayalla ima sheegin meeshuu ka socdo la ima sheegin dadka hadalkiisa sida xaqiiqda Ilaahay sida dadku leeyahay waa inaad xaqiiqda u sheegtaa Ilaahay wixii dadka aad ka qabatay waa inaad sida xaqiiqda u sheegtaa. Deegaanka aan joogno horay arintani ugama dhicin waa lama maqal waa lama arag waa geeri naxdin leh waa geeri lagu karaaray hore ugama dhicin deegaanka. falka noocan ayaa ah mid ku cusub deegaanka uu ka dhacay inkastoo sanadihii ugu dambeeyay guud ahaan dalka ay ku soo badanayaan kufsiyo iyo dil iswata oo loo geysanayo dumarka iyo caruurta. Sawda Cabdinaasir Sawda Beela warbaahinta Daljir Garowe.